degmada Cegaag waxaa saaka laga bilaabay olole nadaafadeed xilli uu roobkii uu ka curtay deegaankaasi. ololaha nadaafadda ayaa waxaa gacan libaax leh ka qaatay ururka dhalinyarada ee Samawade oo kaashanaya maamulka degmada Cegaag iyagoona gabi ahaanba nadiifiyay wadooyinka waaweyn ee degmada iyo dhammaanba xaafadaha kala duwan ee magaalada tani Cegaag. ugu dambeyntii waxaa qashinka lagu gubayay goobo loo asteeyay. ugu horreyntii waxaa halka hadallada iskaga daba maray gudoomiyaha degmada Cegaag Axmed Ciise Cawil iyo mas'uuliyiin ka socotay ururka Samawade oo urur si weyn uga shaqeeya bilicda iyo fayadhowrka deegaankani. waxayna ugu baaqeen dhammaan bulshooyinka ku nool degmada Cegaag inuu qof waliba ilaaliyo nadaafadda maadaama lagu guda jiro xilli roobaad. ay ku tashadeen degmada Cegaag bulshada ku nool nadaafad waxaa nadaafadda la barkow ka ahaa ururka Samawade ee dhalinyarada ragga iyo dumarka ka kooban gacan libaax ay ka qaateen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waanu mahad celinaa ururka Samawade dhalinyaradiisa waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa nadaafadda degmada in laga shaqeeyo maadaama xilliga roobka ay tahay ee xanuunada ay ka dilaacayeen dhulka biyaha ay fadhiistaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ururka Samawade oo gacan libaax ka geystay markasta ka geysta nadaafadda iyo waxyaalaha kale ee horumarka ee degmada iyo bulshooyinka degmada Cegaag inay ka shaqeeyaan nadaafadda haddaan laga shaqeynin waxaa iman kara xanuuno khatar ah. waxaan ka codsanayaa xisbiga talada haya kulmiye in ay 3 goobood ama 4 goobood oo qashinka ah ay naga ololaha nadaafadda ee degmada Cegaag aanu ka wadno anagoo ah ururka Samawade ee ka howlgala degmadan waxaan kaloo soo dhaweynayaa qaybgalayaasha dhalinyarada odayaasha golaha deegaanka dadka nagala soo qaybgalay oo dhan mahad celin baan u jeedinayaa ballaaran. waxaan kaloo leeyahay dadka deegaanka u dhashay nadaafaddu waa shayga u qaalisan innaga wax ku qabnayadu waxba inaguma qabto xilli roobaadkii baynu ku jirnaa biyaha qaadaya baraagaha inoo galayaan caafimaad darro inagu keenayaan ayaa fariin aan u diray qurba joogta u dhalatay deegaankan fariintaas oo ah 3 goobood oo loo asteeyay qashinka in ay wax nagala qabtaan oo ay nala taakuleeyaan. waxaan mahad iyo shukri aan celinayaa ururka iyaga Samawade kaas oo anigu aan magacyo badan u bixiyo iftiin aan u bixiyo oo ka dhex muuqday bulshooyinka Somaliland gaar ahaan degmada Cegaag mahad baan u celinayaa aad iyo aad waxaan kaloo u mahadnaqayaa ilaah baa mahad leh maamulka degmada Cegaag oo madax u yahay gudoomiyaha Jaaleen Qoob kuwaas oo maxaan ku dhahdaa ka dhex muuqday ilaa shalay ilaa maanta nadaafadda oo ay bishu tahay maxaan ku dhahdaa 4 bishii 11aad si dardar la hawlgeliyay taasoo aan ujeedadoodu ay tahay inaan nadaafadana ka shaqeyno iyo caafimaadka una gobol xaarayna maxaan ku dhahdaa doorashooyinka socda. waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa xagga dawladda iyada Somaliland inay wax nagala qabato degmadu waa degmo cusub waa degmo aan awood weyn lahayn inay nagala qayb galaan ololayaasha noocaas oo kala ah. bismillaahir rahmaanir rahiim ana ku hadlay afka ururka Samawade ee ka dhisan degmada Cegaag waxaan maanta sameynay degmada ka sameynay ololo nadaafadeed ama subax nadaafadeed aan ku nadaafinayno guud ahaan degmada iyo faris magaaladeeda iyo meel kasta sadarkasaan halkan qashinkii waa gubanaa maanta waana nadiifinay guud ahaan degmada u soo jeedinayaa in la qodo gudad ama jaaliyadaba gudad la qodo qashinka lagu guro meelo waxay magaalooyinka loo sameeyaa qashinka la geeyo oo lagu gubo qashin maalin walba suuqa laga ururiyo haddana waa la soo dhigayaa ama fadlan walaal ilaali nadaafadda si aynu u helno caafimaad dhammaystiran una gaadhno horumar. Walibaan Axmed Ciise Liibaan Qaran wararka telefishinka caalamiga ee Somali News degmada Cegaag.